Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada Istanbul Kitchen. Maanta waxaan sameynayaa insha Allah chicken saa ujeedeen iyo bariis cad. Waa chicken waxaan sameynayaa chicken tandoori. Kabaab ahaan u sameynayaa insha Allah. Insaan u soo jarjaray. Marka waxaan ku darsanaynaa qasaya marka chickenka 2 qaado oo tandoori paste waan tusayaa isticmaalaya wuuna kulul yahay laakiin qiyaasa aday kugu xirantahay inta isticmaalaysid sanjabiil iyo toon waa isku shiidan waxaan ku darayaa oo kale yogurt 2 qaado yogurt liin dhanaan waaye geedkaas oregano wixii saliid soo qaleel u noqon isbeeran ku darayaa waxay cusbe marka intaas isku qaseynaa marka si fiican isku qaseysaa saasa marka isku soo qasay waxaan ku darayaa wax yar oo food color oo guduudka in yar la isticmaalaysa isla guduudiyo isku qasaysaa bes adee ugu yaraan waa inaa 4 saac finjeerka kugu jira iyo ka badan aan daboolayaa finjeerkan gelinayaa haddana bariiskii aan dalacayaa basal iyo wax yar saliid ee kusoo shubay basasha wax yar aan soo yara shiilayaa basashii markay saa usoo shiilmato waxaan ku darsanaynaa bariiska waa 2 koob inta fiican usoo dhaqay toon shiidan aan ku shubayaa weesha siisan aan ku darayaa aan isticmaalaya hadda arki cusban oo isticmaali karta marka yara qaleynayaa kabsar caleen aan ku darayaa aan soo jarjaray isku walaaqaysaa marka waxaan ku shubayaa biyo kulul taasaa lagu soo karnaa marka
marka chickenkana saana kasoo dhigay ovenka gelinayaa 350 35 daqiiqo oo ku jiraya ovenka. marka dhinaca kale u gudinayaa insha Allah. marka bariiska biyaha saas marka uu qabsado huurina wax yar hooyadan koraya ka saaraya. dabkana waxa u geynaysaa low. maasha Allah, bariiskeena caddaa ee chicken tandoorigeena sidan quruxda badan oo kasoo baxay. naba caadi ma aha, wax qadayro aad iyo aad u fudud, qof kastana samayn kara insha Allah. yaa maasha Allah, hadaa ka heshay subscribe-ka ii saara, like iyo share, comment-kana waa dhinaciina.